Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada channelka Mamos Media. Fadlan hadaad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, like saar, share dheh. Mowduuceena maanta waxaanu kaga hadli doonaa sheekooyinka dadkii guusha gaaray iyo orahyadii laga qoray. Qof kasta cidda uu doonaba ha noqdee, waxaa lagama huraan ah inuu fashil dhadhamiyo siduu ugu dambeyn u guuleysto. Waana waddo adag oo ay soo wada mareen badanaa dadka nolosha ku guuleystay. Dadka guuleysta heerka ay gaareen kuma ay gaarin waddo ubax ku fidsan yahay oo aan qodax lahayn. Haddaba si aan wax badan uga fahanno sida ay guuldarradu ku noqotay waddada guusha loo maro, waxaan soo qaadanaynaa hadallo dhaxalgal ah oo laga hayo qaar ka mid ah dadka nolosha ku guuleystay. Colin Powell waa wasiirkii 65aad ee arrimaha dibadda dalka Mareykanka, waxaanu ahaa 2001 ilaa 2005. waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Mareykan madow ah oo shaqadan qabta. Hadalladii dhaxalgalka ahaa ee laga hayo waxaa ka mid ah: guusha waxay ka dhalataa xirfad sareysa, dadaal dheeri ah, fashilka oo wax laga barto, daacadnimo iyo quus la'aan. Guusha waxa ay leedahay tilmaamo badan. Waxa ku dhiirigelinayo waa isku dayga joogtada ah iyo khaladaadka wax laga barto. Edwin Land: inaad fashil ka baqataa waxay hoos u dhigaysaa awooddaada. Haddaba inaad guul darrada qaadataa oo aad barataa, waxaad ogaataa in ay kaa dhigayso qof hal abuur ah oo inuu guul gaarona ay fududahay. Bill Gates: way habboon tahay inaan u dabaaldegno guulaha aan gaarno, laakiin taa waxaa kasii muhiimad badan in aad fahanto duruusta aynu ka baranayno fashilka. Ku dadaal inaad ku raaxaysato guushaada, laakiin marnaba ha ilaawin duruusta muhiimka ah ee aynu ka baranayno fashilka. Waana arrinka keliya ee aad ku ilaashan karto guushaada ee meesha ugu sarreysa ku gaarsiinaysa ugu dambeyn.